بسم الله السلام عليكم. een run ahaantii waxaan la yaabaa dadka diinta ka baxa oo ama kiristaan ama diimaha kala qaata marka la weydiiyo oo la yiraahdo maxaa diinta islaamka uga soo baxdeena waxyaalaha uu qofkaasi ku celcelinaya waxa weeye shaki badan ay u abuurmay يعني شك كنت سنك أبور من كهر دين تنمبو إسن أقوام به دين الإسلام كأقوام بأموسا ماهين أموسا بران مركي و أقول لعان أو دين تا و أقبو و كوينا دينا سؤال بدن بو إسويديي أما إساقا قفكي روي مركا دين تا ونكسار ويديي هدو ويدينا جوابو وايي جوابي مركو واينا شاكي باكو أبور ماي shakigu markuu ku abuurmay meeshu marka raadin lahaa oo ama culimada la kaashan lahaa ama YouTube-ka ka raadin lahaa ila YouTube-ka muxaadaraad badan ku wada jiraan ama diintii dib ugu noqon lahaayo barashadeeda iyo iyada dib ugu noqon lahaa ayuu wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo inuu diintii oo dhan ka tanaasulo faraha ka qaado dadka uu aaday diinta ka saarayna waa dadka maalin walba iyagu isdilaya oo qof walba isagu naftiisa isku qoonsanayo sababtu ay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub qalbiga waxa dajiya qalbiga waxa wanaajiya qalbiga waxa farxad ku abuura iyo deganaan ku abuura waa dhikriga Ilaahay iyo waanad Ilaahay oo kalaamka Ilaahay ugu horeeyo qofkii marka wuxuu sameeynaa wuxuu akhrinayaa Bible loo keenay oo Soomaali lagu soo turjumay markii su'aalahan ay ku taagnaayeen oo shakigan ku taagnaana ma uusan raadsanin kitaabka Quraanka oo Soomaali ku turjuman wuu yaalay muusan raadsanin su'aashu rabay عدي مركا إلهي سبحانه وتعالى حيري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دادك أقونت أصاحبك أويدية هدي أيضا قرانين دادك ألمو صلابانين قفكي إساقو انتو بحي كتابك قرآن كهايو تفسيرك هايو الصومالي أما كتبت أحاديث كتب بدن وأحاديث عقيدة يعني اللغات الصومالية كتب بدن ما لغو ترجمين مؤسن راتسنين sidii buu uga gaabiyay diintiina uga baxay hadhow markuu diintan kala galayna waxa loo dhibay Bible Soomaaliya kiibu akhriyay kiibu ku qanacay markaas uu ku leeyahay diinta kaliya ee jirta ee adduunka aakhiro ay badbaadinaysa waa tan badbaadiyahaygu waa Ciise baa laga dhaadhiciyay wixii laga dhaadhicin buu kula iimaanay qofkii marka bal maxaa u diiday diintiisa markuu ku jiray inuu diintiisa barto haduu baran waayana inuu Soomaali u akhrin karaaye uu raadsado ila hadaba Soomaali u akhrinayay uu raadsado kutub Soomaaliga u yaqaan ku turjuman ama Ingiriiska u akhrin karo ku turjuman ama Carabiga u akhrin karo ku turjuman wada helayay waxaan maqli jiray qofkaas Ilaahayna uu isku diray cod xuna meeshu leeyimid kale waxay ka wadan ma aqaan waa qof kale uu markaas wax uu sameeyay marka qofkani Ilaahina uu isku diray meel fiican uu ku liibaanana muusan aadin waxa la dadka noocaas sameeyo Ilaahina ka habsada diintiina dib ugu laabta barashadeeda dib ugu laabta fahankeeda dib ugu laabta culimada weydiiya raadiya sida aad taa kaleba u raadinaysaan si lamida u raadiya inaad diintiina fahantaan u raadiya diintiina inaad barataan u raadiya in qof adiga kula mida intuu ku yimaado inuusan ka dhaadhicin diintaada ka soo bax oo tayada soo gal taasina wax aqligu xataa yeeli karo maaha waxaan leeyahay qof walba adduunkan intaa joogtaa jaanisaysa tahay rabbiga raali geli taasaa muhiimadu tahay insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته